marka hore waxaan salaamayaa golaha shacabka oo aan ku soo mid noqday oo xildhibaankii ugu dambeeyay aan ahaa iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo guddiga doorashooyinka oo ku meel gaarka maadaama aan ahaa ciyaartoy hore oo dhaawacmay 6 sano dhaawac ku maqnaa marka waxaa jirto gudoomiye intaan hore u sii galin arintayda waxaan rabaa inaan ka hadlo dhibaatooyin ka taagan degmada Afgoye ee gobolka Shabeellada Hoose muddo 25 beri ah dadkii waxay dhex jiifaan biyo dhexdooda ilaa hadda wax dawladda koonfur galbeed ama dawladda federaalka ka hadashay ma jirto sababta ay ku dhacdayna ilaa hadda ma naqaan sababtoo ah meel kasta markay ka dhacaan dhibaatooyin waxa dhacdo in la aado ama madaxda ay aadaan ama ra'iisul wasaaraha aado ama madaxweynaha aado ama qof kasta oo ka tirsan dawladda inay aadaan Afgoye waxa ka dhacday muddo 15 beri ah ilaa hadda kama seexan dhibaatooyinka ka taagan dadka maadaama ay tahay deegaan doorashadeeda iyo dadkayga ay degan yihiin ilaa haddana qof wax u qabtay uusan jirin marka waxaan ka codsan lahaa gudoomiye inaad loo saaro guddi oo baarlamaani ah oo arintaasi ka baarandago kow tan labaad waxaan rabaa dawladda federaalka لوشيكان ديكا سوقرا كما قتل مركعلا تشيغي سما اوكي ان اسمو ما بكشف كما كان يسجل جنو كما يسترمك gudoomiye adoo raali ah mooshinkaasi marka la qorayo aniga ma joogin hadda la soo qoray aniga arintan hore ay ugu qorneed marka ajendahan toosu galaa insha Allah waxaan aniga haddaan hore u galo in ajendaha in doorashada ay noqoto mid u dhiganta nidaamka asxaabiga kan tan labaad in xisbiga uu noqdo kan la dooranayo inta qofood uu isdiiwaan galisa ayaa matali kara dalka oo dhan iyadoo la ilaalinayo awood qaybsiga oo ay ka baqayaan xildhibaanada hadda joogan inay soo noqon waayaan waxaan qabaa qodobka 11aad qodobka 11aad nidaamka doorashooyinka habka doorashooyinka dalka wuxuu noqon karaa in laga dhigo in la qaato maadaama laga saaray liiska xiran proportional percentage close list liisaska xisbi walba waa in aysan ka badan laab kuraasta loo tartamayo tirada guud marka aniga waxaan dhihi lahay meesha laga saaray close listiga in lagu soo celiyo guddiga ay ku soo celiyaan waa mahadsantihiin